بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتنا قد دعونا يسجدهان دولدا يسودو كله أخياتنا قد جيسنا يسوربين TSBC مرتدى نقيمها له نقول سجن هول كوين هوتيل جباي مجالة بوساسو حرونتا قبل كبري وجيت كمناسبة دنيانو جبنو وجبدا ترتن ككدس كبيشة بركيسنا رمضان قبتها يد وربعين تسوماليات SBC سنة دولبا سنة كانوا سنة كي سجالات إبايا محله dhammaanteeda halkaas uu ka keenay inagu caafimaad qabna waxaan u mahadcelinayaa ugu horreyn waxaan ka raali gelinayaa daqiiqadaha kooban ee dib u dhacay tartanka xilliga loo ballamay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda qiimaha leh ee ka nagala soo qayb gashay xiritaanka ama gunaanadka tartankii sagaalaad ee qabato hay'adda warbaahinta Soomaaliyeed waa kadiska bisha barakeysan ee Ramadaan sanadkani waxa ku tartamaysa oo la wada socoteen 24 xaafadood oo kamid ah xaafadaha Puntland waxaan u mahadcelinayaa madaxdeena kala duwan wasiirka xanaanada xoolaha ayaan ka bilaabayaa mudane Cabdi Jabaal gudoomiyaheena gobolka Bari Dr. Yusuf duqaad degmada Boosaaso oo aan aad ugu mahadcelinayaa shalay qoraxdana la taagnaa nala soo dhaweynayay xaafada 1 Agoosto ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ee Garowe nooga timid waxaan sidoo kale aad u soo dhaweynayaa mudane Awaare oo nagu soo biiray daqiiqado kooban oo muddo naga maqnaa aad baan u soo dhaweynayaa ku soo dhawo magaalada Boosaaso ayaan leeyahay mudane farxadna way noo tahay inaan nagala soo qayb gasho طبعا حريتان كترتان كان waxaan sidoo kale aan mahadcelin aan ilaawi karin oo aad igu wanaag u direeyaa shirkadaha maalgelinaya barnaamijkan shirkadu isku ma jiraan Golis Telecom Soomaaliya ee ugu horeysa waxaa sidoo kale ku xigta muasasada Minhaj ee dacwadda iyo horumarinta oo aan ogsoonahay waxyaabaha ay bulshadeena u qabato hadii ahaan lahayd dadka wanaag falida kaalmeynta dadka danyarta yar iyo waxyaabo kale iyo sidoo kale shirkadda daawacaadda ee Horyaal dhammaantood waxaan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay Allah idinka abaal siiyo waxaasi aad u qabateen bulshadeena waqtigu aad u kooban iyo waqti badan oo naga dhacay tartankeena ayaan guda galeynaa waxaan siinayaa aayado quraan maadaama dad islaam ay nahay oo marka meel isku yimaadaan aayado quraan ku furano al-akh Sheekh Saciid ayaan ku soo dhaweynayaa soo aayado quraan noogu furo kadibna waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha si uu noogu sheego shuruudaha waxaan guda gali doonaa haddii ay barraali ka noqdo inta wixii ka dambeeyay tartanka khudbadaha iyo dabcan madaxdeena ugu talagalayna way noo dambeyn doonaa al-akh Sheekh Saciid ayaa ku soo dhaweynayaa soo dhawow SBC TV aan laga daawanaysaan daawadayaal dunida oo dhan warbaahinta SBC magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe si toos ah nooga dhageysanaysaan iyadoo sidoo kale aalada Tycom 5 oo warbaahinta SBC ku beertaan naga dhageysanaysaan soo dhawow Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير الله كاوى المريا لها قرآن كان نقول دوا خرسي أنا كان الله نقدر يفوق عمل فلا مرة بعد هي مرسد حاد أخيات قيمها لا يقدرين تنقب مدن نقول سجن هول كشوبا ونسود ويننا عند كلام هاد علنا أنتو ترتقى صدقنا نقدر نويا راضي شنقرته meelahan dhan fiilooyin ayaa daadsan waa kuwa sahlaya in asxaabada naga dhageystaan idaacadda halka kuwa kale oo fara badan ay naga daawanayaan dunida oo dhan telefishinka SBC oo tartanka si toos u taminaya gudoomiyaha guddiga ayaan ku soo dhaweynayaa si shuruudaha si kooban noogu sheego mar labaad kadibna guddiga tartanka ayaan guda gali doonaa gudoomiyaha guddiga Sheekh Liban Mashruuc mudane soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ولا يمرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة إسلام كذب أولا نسجد يتين وحمد الدار يا الله سبحانه وتعالى عبسليسة كان كليا إنه كبت بالك أن الدارة إنه تاغن هاي هي تدم إنه تجدون أدو كان سخر بينه كان هاي وإن كلا هور مرينا إلهي وحن كبرنا قاتلين وقرنا وقتمه أنت كذب maanta waxaa ugu dambaysa tartankii kadiska bisha Ramadaan idaacadda SBC ee qaban jirtay waxaana ku soo haray laba xaafadood oo laba gobol ka kala tirsan gobolka Nugaal iyo gobolka Bari xaafadda 16 Juun degmada Boosaaso iyo 1 Agoosto degmada Nugaal shuruudaha haddaan u sheego marka ugu horeysa waxaan rabaa labada xaafadood taageerayaashooda 1 Agoosto taageerayaashiina istaaga waa raggii taageerayaasha 1 Agoosto 16 Juun istaaga digan waxa samaynaysan 1 Agoosto 16 ka maalinsan 16 Agoosto tigis kala wareeg istaaga xadda kale kuraas kala bedesha dhaqsada waqtiga
aynu ilaalino insha allah. waxaan ka codsan lahaa labada xaafadood 1 Agoosto wixii moobilo ah haysaan oo dhan guddiga u soo dhiibaysaan iska soo ururiya moobilada ah haystaan 1 Agoosto ka fadhigaysaan 26 Juun moobiladin soo ururiya halkana keenisaan maanta waa inaad maskaxda adeegsataan wax moobila looma baahno hala baaro qalin iyo warqad may wax kale uma ogelin أتغني يكسر صوت البعض وقتي محل سواء كان سكير إن شاء الله تعالى تنقلوا حنكرمنا إن شاء الله تنقلوا حنكرمنا دولة هن لبلا حافظات حديث سؤال شو قدي وصوص صار قلت دقيق له ويجور الله وها لكن صدق ويهدر حافظ كستا waxay xaq u leedahay 3 daqiiqo gudaheed hadii wariyaha uu yiraahdo qofka tabanay uu yiraahdo daqiiqada ugu dambeysay wasakin way qoladaas tagnaan way ka dhacday wax badan baa maqasheen way ka dhacday la kadar anagu xay ah bal ma wada way ka dhacday hadii su'aalaha laga jawaabo waxaan kaloo rabnaa hadii qof uu soo istaago qof la ma soo istaago qofka soo istaagay haddaan ka darayno xaafadu u soo istaagay dhaqdhaqaaq ayagoo baaqaya سؤاشا قفكا ما يلنا وكذا هذا بواد دقدقة قدام كتر إنه حافظ كستمون قف أو تتمية قف بسوي استغال كقف وكلا هدان دقدقة يكتر إنه وهو سؤاشا كوري جنا حافظ وحنقول كعصنا للتدوينة موبيلا أهلستان سين تجلي سام موبيل جاك كلام جديد تحرك هذا إنك سو معمول كوي فريان هذا حفيظ كان هذا يجود جاك كتريه موبيلك ساسن سمعنا حتى دقائق هدان كتر كل اللي حافظه ذاتك سوق الواتاجريا مركب معمول كلاجة هو يجودي لكن حتى كتر إنه هول كرجع فدية أيقو أباقية سؤال شاسي أيضا هو توريس ولو ذاتك في قصة تمام تمشي أبدا أنت وياه سؤاله وحكوا كوي هاي حافظ كستوحى والله ذا حق شن سؤال أفر سؤال هي قرآن كأو نكسر الويدين سؤاله وحكوا جرام بشغلة هذه سديد بامد كم إذا أوفرنايا مثل وقص بيمجلو كي أوفرت أيام الله آخرية ويقول واحد عندك اللمبر اللي قبسان جرين اللمبر كي قبسان بلو أخرج هذا لكن بشغلة هذه سؤال شو قفك أنت لديه لها حافظ سؤال أدق بالنويدي حافظ ذكر سؤال جل عسم بالنويدي أريتاسي وما دا إلى مرقاتنا وطن بان أنا إله وانقول دارني أو والله أو بالله أو طلع إن الله وضع حافظات سؤالها بشغلة أنا هينو من إن أوجي هذا هي الاستهو قرتنا هذا إن أنا من إن أوجي أو قف كستبع سؤال شو أصاب بحدا هدي أو قرطي يهدون الجرم هدو قرطنا أقول تسكو قرطي هدو سجرنا أقول تسكو قرطي لكن سيدا هدي لو قال بشغلة أنا قفت السوق قف سو استاجي أو قبناي سؤال شو بكرة كذي وريها أخني أريد أول سلف فهمي وأنا قصلا عند دقائق إن لا يريو إن شاء الله تعالى ونوفر وياه وحنا كعصلا ما هو كان وليا كوريجين لبضع حافظات لبقف بسوي استاجنا لبضع بشغلات ذاك القصنا من نوع سؤال شكو من نوع الله قفت السؤال شو لو بلا لها أنت لو الله أذان لها كذا وصل لو بلا والسؤال على يقص بلا بدون سؤال هذا كل وقت يلديه لكن بس خطأ كلا صوبه مركز شاطر ليه لا ترجون يكون وصل لوقف باهو مانيا لولا قف هل تنزل السجن وحشيجا يحافظ دولي هي اللمبر كي يقصين يلا كذا وصل سورو ساسا مش كسر القرية نبي نمشي أي حاضر أي
كسبة إن تكون أحسنت تدمير ويس هذا حافظ المشي بسم الله الرحمن الرحيم حافظ الإسلام إلى تجون وحيسيب الشيء يقول أبي وكان حتى يكسب أنا أبي وكسب دون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قصة حافظ كود أغسطس واحد تفصيل نمبر لبو ترتب وحي كسب بحنا وحقنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى وإنه فرميا وحن كلو ربنا وشيعه حافظها هل سؤال بأفر إني كلمة ويجسان هدي حافظة أي سؤال لا أي سؤال طبعا كل جرام ويان صدق هذا جودهن وجودهن يكذب ما صدق هذا أنتم صعب حليين لما كانوا لما كان هديه قفك قلون وايو شقاء كل المجد هل لما كريان لو قلي على قد تحضره وش إن شاء الله بالله ونساء وبالله التوفيق. aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha tartan aqooneedka kediska bisha barakeysan ee Ramadaan ee warbaahinta SBC Sheekh Liban Mashruuc waxaan ka codsanayaa dabcan dhaqdhaqaaq in loo ilaaliyo xaafadahana waxaan ka rajaynayaa inay shuruudahaasi guddiga soo jeediyeen ay u hoggaansamaan si tartan noogu fududaado marka waxaan u mahad celinayaa culimadeena waan daayay ilaaway dabcan waxa kale nagula soogan madasha gudoomiyaha gurmudka dadka ka soo cararaya dagaalada ka soconaya dalkaas Yemen Sheekh Ahmed Yusuf Daad waan mahad celinayaa culimadeena dhamaantood nabadoonnada oo sidoo kale nabadoonno badan nala joogaan aqoon-yahanada ganacsatada iyo haweenka oo qayb ka mid ay muuqdaan dhammaantiin oo idin mahad celinaya soo dhawaada ayaan idin leeyahay daawadayaashana daawanaya idinkana waad ku mahadsantihiin daawashada iyo doorashada aad doorateen in SBC TV aad daawataan sidoo kale aad dhegaysataan dunidoo dhan ayaad nagala socotaan goordhow si toos ah waxaan kugu wareejinayaa guddiga iyo tartankii iyo saaxiibkay Xasan Gentleman oo tartanka inoo daadihin doono طبعا مر لبعض قدوميها يقع الصدي إنه كلمة سوتشيل يا قدوميها ينسود وين يا واشيخ لبان مشروع قدوميها سودو وما صنت هاي وحنا وصلنا لغاي سؤالها هدي حافظي قفته كفايدي سوى كفايدي سوى كذا وحنا إن شاء الله تعالى مستمع وحلال برقة لقشة ولي وحنا صلنا سجد بس قلنا تريس طبعا وراقه هو وإذا كنا نسألين كنا لابو سدح أفر شن لح تضوى سداد طبعا على علامة ملحة دول شركة صوماليا أو شركة مال قليلة برامج كالقيب كاشركة هو وين برامج كالمال قليلة ayaa dhanka uga qoran iyo magaceeda iyo lambarada kaliya wax calaamada ku qoran ma jirta qofka sanadka ayaa la soo bixi doona insha Allah dadweyne marqaati noqdo insha Allah wabila waxaan kala ka codsan lahaa xaafadaha intii tartanku socday waxa laga yaabaa in xaafado ay yiraahdaan waa naga heli haddeer waxa weeye xaafadu way qalacsan yihiin sideed warqadood weeye waxa la soo baxsata ayaa helaysaa bilahay calaamad ma leh calaamad loo qof loo tilmaamo ma leh قف بسوء استاجيرس أمريكا سؤال شكوى قف ولا هو كلا حافظ رضوان سديدا ورقضات سيدنا لما يقولوا ربنا حبض ذكر صباحين حبض المكان وليه وآخرين إن شاء الله وحنا إن شاء الله تعالى جدّي واحد كلا وليها حسن عبدي فري وهذا القصة بيري أنت الكروار وحنا إن شاء الله تعالى بلاغي شيخ فؤاد دوجو إنه داريو حسن عبد فري طبعا حسن ما سنة يوم هالك صوب بدي سكوت ديجا si loo dhaariyo shuruudaha tartanka ayay ka mid ahayd in la dhaariyo qof kasta oo tartanka qayb qaadanaya dabcan waxaad la socoteen in guddiga iyo sidoo kale wariyaasha farsamayaqaanada idaacadda SBC ee ku sugnaa goobtii lagu qabanayay tartankan dhammaantood la dhaariyey xasan soo dhawow si lagu dhaariyo وهجاج داود يا SBC TV aad naga daawanaysaan sidoo kale idaacadda SBC aad naga dhageysanaysaan magaalooyinka Boosaaso garowe iyo Qardho idinkoo sidoo kale idaacadda ka dhageysan kara aalada Telkom 5 oo idaacadda SBC ay ka mid tahay idaacadaha ku jira dabcan TV-ga SBC noo daawan ka dhan haddii aad naga dhageysanaysid idaacadda si aad u daawato muuqaalkan quruxda badan ee halkan ka socdo iyo sidii wax u socdaan TV-ga dabcan aad remote-ka qaato iskaan garaysata kaliya ayaa kugu filan waad daawan doontaa waxaadna la mid noqon doontaa qofka halkan maanta ku sugan adoo gurigaaga joogo طبعا guddiga iyo xasan ayaan ku wareejinayaa si tartankii noo sii gudagalaan waadna ku mahadsantihiin daawashadayda
asxaabtana daawanaysa meel kastoo aad dunida ka joogtaan maalin wanaagsan ayaad leenahay intiina maalintay u tahay dabcan halkaa waxaa noogu qoran baqtiyaa nasiibyo aad u kala duwan oo shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya ugu talagashay iyo sidoo kale biribeer loogu shubaya qof kastoo halkan jooga waraaqahaas ayaan idin keenayaa qof kasta wuxuu ku qorayaa lambarkiisa oo keliya waraaqda lambarkaada ayaa ku qoraysaa kadibna waa lagaa soo qaadayaa abaalmarino kala duwan ayaa halkaasi lagu helayaa iyadoona sidoo kale aan idinka codsanayn inaa sarxadda iyo buuqa waxa la yareeyo cid kasta waa loo keenayaa adeega shirkadda ama hotelka Jubba oo ugu talagalay xafladda tan in dadku qanciyo macaamiishiisa ku sugan Golis Telecom Soomaaliya waan u mahadcelinaynaa sidoo kale shirkadaha kale ee ka qayb qaadanaya sida Horyaal Dad iyo sidoo kale mu'assasada dacwadda iyo horumarinta Al-Minhaj barnaamijka daawadayaal daawanaysaana waa gabagabada tartanka kariska bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ku tartamayaan labada xaafadood ee kala kooda Agoosto ee magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland iyo sidoo kale xaafadda 26 Juun ee magaalada Boosaaso qaybtii hore ee tartanka way soo gabagabowday dabcan gabadhow guddiga ayaa noogu dhawaaqi doona natiijada waxaadna si toosan nooga daawanaysaan sidoo kale nooga dhegaysanaysaan idaacadda SBC iyo sidoo kale telefishinka SBC meel kastoo aad joogtaan mar kale maalin wanaagsan waxaan leenahay gabadhow ayaan isugu soo noqon doonaa mar kale qaadacayuun ayaan dib ugu celinaya hase ahaatee waxaan la socodsiinayaa waraaqahan idiin keenaya qof kasta lambarkaada ayuu ku qori doonaa dabcan waxaa la jooga Cabdinaasir Siciid oo ka mid ah xafiiska waaxda xiriirka dadweynaha shirkadda Golis qaabka dabcan shaqadan ay u socon doonto wax nooga sheegaya Cabdinaasir soo dhaw aad baad u mahadsantahay daacad waxaan idin xasuusinayaa warqadahan idin qaybinayno warqado ay ku qoran yihiin daqiiqado hadal ah qofba inta nasiibkiisa ay noqoto qofba $10 ku guuleysanaya oo daqiiqado hadal ah qofba $5 ku guuleysanaya qofba $3 qofba $2 wax ka yar ma jiraan marka lambarkaaga ayaad ku soo dul qoraysaa si lacagtaas aad ku guuleysatay lagu soo shubo sidoo kale waxaa jira abaalmarinadan iyaguna qaaliga oo halkan yaal abaalmarinadan iyaga waxaa lagu heli doonaa su'aalo ay dadka weydiin doono oo ku saabsan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Golis adeegyadaas 10 qof oo ka mid ah ayaan ka xulan doonaa warqadaha 10kaas qof ayaan adeegyada weydiin doonaa qofkii ka jawaaba waxa uu helayaa abaalmarinadaas qaaliga oo goobtan yaal oo ay ku jiraan ruuxantii abaalmarino oo ay ku farxi doontaan haddii ay ogolaado waxaan idin leenahay abaalmarinadaasna ayaan la gafin baqtiyaa nasiibkaasna waxaan leenahay dee guul ayaan idinka rajaynaynaa hagaag waqtigan siigana bay kala duwan yihiin halkaas ay idinkaga muuqdaa dhanka shisha mobile ayaa ku yaala waxaa ku xiga flash haadiski saacad barafoon dabcan shukada dumarka xirtaaneen maxuus aad u qaali ah sidoo kale way muuqataa waxaa sidoo kale ka mid ah gool shaalo kii odayaal dhaqameedka dhammaantiin dabcan shirkadda Golis waxay ugu talagashay asxaabta inta ku sugan oo fursad u helay maanta inay ka soo qayb galaan munaasabadani qiimaha leh lagu soo gabagabeynayo tartanka kariska bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan sanadkii 9aad ay qabato hay'adda warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC istayaal iyo sidoo kale martideena qiimaha leh ee nagula sugan hoolka weyn ee Hotel Jubba ee magaalada Boosaaso sida aadka loo qurxiyay waan u mahadcelinayaa hotelka Jubba ee adeega dheeraadka mar kale soo noqosho wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijkan sii gudagalayna waxa ugu horeeya dabcan waxyaabaha Golis Telecom maanta noogu talagashay si gaar ah waxa ugu horeeya hadda ku xujinaynaa qaybta hadiyadahaasi hadiyadaha waxaa lagu heli doonaa su'aalo waxaana su'aalaha ka koobnaan doonaan adeegyada kala taaj hoodo baaq afgarad ila wadaag xogmaal sahal kaaftoon iyo ku naso dabcan qofka su'aal halku imaanaya su'aal baa la weydiinaya laakiin qaabkan uu u wadi doono barnaamijkaasi jaamaca mas'uul ka mid ah qaybta marketinga ayaa inoo sheegi doona kadibna qaybtaas ayaan sii gudageli doonaa kalbadaha mas'uuliyiinta oo ku sii xijin doona waan u mahadcelinayaa madaxdeena qiimaha leh ee waqtigooda noo hortay ilaa haatan nagula sugan gudoomiyaha gobolka duqa degmada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale maamulka odayaasha nabadoonnada culumadeena iyo sidoo kale aqoon-yahanada iyo sidoo kale siyaasi mudane Cali Cabdi Awaare oo haatan nagula sugan stuudiyaha Hotel Jubba ee magaalada Boosaaso xafladda si toos ah naga socdo jaamac soo dhawow qaybtaas ayaan sii bismillaahi raxmaani raxiim maamulka tartamayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabnaa kasoo qaybgalayaasha xafladdan inaanu la wadaagno waqtigii ayna siiyeen awgeed inaanu siino fursad aysan helin dhegaystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijkan intuu barnaamijku socday fursadda waxaa haystay dadka dhegaysanaya iyo dadka daawanaya laakiin maanta fursaddan waxaa helay dadka sida live-ka u fadhiya xafladdan waxaan rabnaa inaanu siino dadkan hadiyado qaaliya waxaad ogtihiin Golis xaflad kasta ay dhigto dadka ka soo qayb galaa ma laabtaan ilaa inay iyagu haysan mooyee
haddana laaban maysaan ilaa qof walba idinkan ka madax ugu helaya waxaan idin qaybinay warqadaha aan idin qaybinay waxaa ku qornaa minutes lacag bilbayda qof waxaa ugu qornaa $10 qof waxaa ugu qornaa $5 qof waxaa ugu qornaa $4 qof waxaa ugu qornaa $3 qofna waxaa ugu qornaa $2 nasiibkii lambarka dul saarteen waa u fiirinaynaa qof walba lambarkiisa lacagta uu helay baa loogu soo shubaya qof walba idinka midna nasiibkiisa $10 hadduu siiyey iyo 5 hadduu siiyey 4 hadduu siiyey waad helaysaan waxaa kaloo jira 9 qof oo si gaara hadiyad u helaya qalabka halka yaalla 9 qof waxay ku helayaan 9 adeeg oo ka mid ah adeegyada shirkadda Golis buu wuxuu ka fahansan yahay ka sheegaya markuu sheego kadib waxa uu helayaa hadiyad u qalanta adeegga uu sheegay qof walba lambaradii halka ku oolaa aynu soo ururinay waxaan ka codsanaynaa maamulka xafladda inay kala soo qaybgalay dowladda inay kala jooga in ay soo qabtaan warqad u soo qabtaan qofka la yeeriyo oo magaciisa la sheego lambarkiisa la sheego wuu soo istaagayaa waliyaha cabdinaasir baa wuxuu inoo weydiinayaa su-aasha adeeggaas laga weydiin lahaa kadibna jawaabtu sheegayaa kabacdina waxa la siinayaa hadiyadiisa waxaan filayaa inaan isfahanay su-aasha koowaad si laynoo weydiiyo oo macmiilka ugu horreeya loo soo qabto waxaan rabnaa in warqadda soo qabto guddoomiyaha gobolka bari Soor Yusuf طبعا لمبر يا هاتن لسoo qabtay numberka qofka uu ku qoran yahay ayaan u yeeri doonaa طبعا su-aasha koowaad waxay leedahay intaan lambarka sheegin mise su-aashan ku hormaraa okay way su-aasha koowaad waxay leedahay macmil sharax adeega taaj habkeesa lacag loogu diri karaa dalka dibadiisa macmil sharax adeega taaj habkeesa lacag loogu diri karaa dalka dibadiisa taaj dhamaanteen waan isticmaalnaa dalka dibadiisa oo looga soo diraa annana waynu dirnaa dabcan qofkii nasiibku u yeeshay lambarka qofka wuxuu wataa 73 35 26 73 soo dhawow su-aashaasi dabcan inaad faataan u malaynayaa xagga ka soo wareego بسم الله الرحمن الرحيم هذيك تاج حوالة قديس waxay taleefka sahalka waxa taabanaysa number 2 number 2 ka wada kadib waxa ka sii dooranaysa xawaalad dibadda ka sii dooranaysa number 2 waa adeegka taaj baa sii dooranaysa saas u diraysa lacag waaganta aan siiyo jaamac oo sax iyo qalad inoo sheegi doona haday haduu sheeqliwa noo sheegay hadda jaamac ayaa sheegaya jaamac macmiilkan adeega xawaalada taaj wuxuu u sharaxay si wanaagsan waxaana uu ku guuleystay hadiyad ka mid ah hadiyadaha shirkaddu ugu tala gashay waxa uu helay mobile Samsung lambarkiisa waa 73 35 26 xawaalada taaj haddii aad ku isticmaali jirteen lambar 2 in laga diro dabcan gudoomiyaha ayaa gudoonsiinaya mobilkiisa macmiilkaasi ka mid ah shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxayna ka mid tahay mobilkaas uu ka mid yahay bakhtiyada CV-yada kala duwan ee halkaas ku qoran shirkadda Golis ugu tala gashay dabcan faahfaahin kooban oo ku saabsan adeegga taaj mar kale jaamac xawaalada taaj waa xawaalad casri ah oo qofka macmiilka u fududeynaysa isagoo gurigiisa ama xafiiskiisa jooga inuu lacagta diro u diro dibadda isagana loo soo diro meenuga sahalka baad gelaysaa lambar 7 waan ku soo dirnay hadda waad aragteen SMS idin soo dhacay lambar 7 baa idin soo dhacaya lambar 7 baa waxa ka dooranaysaa xawaalada taaj ka bacdi baad u diraysaa qofka lacagta u dir lahayd macmiil markaad rabto inaad lacag dibadda u dirto qofka lambarkiisa ha ka hormarin 00 ee waxaad si toos ah u qaraacdaa lambarka meesha ka bilowdo 9 hadduu ka bilowdo 9 ka si toos u mari waxaan rabnaa su-aasha labaad macmiilka labaad inaan insha Allah weydiino su-aasha waxay noo soo qabanaya duqa degmada Boosaaso duqa ayaa haatan inoo soo qaban doona bal qofku nasiibka u siiyo nambarkaasi iyo su-aasha labaad ee gacanteeda ku jirta dabcan su-aasha labaad waxay leedahay macmiil sharax adeega hoodo sheegna nambarka lagu ogaado natiijada
macmil sharax adeega hoodo sheegna nambarka lagu ogaado natiijada aanu yeero nambarkaas waa 79 eber 4 79 eber 4 79 eber 4 eber 4 lamarkaa waxaa lagu ogaadaa natiijada imtixaanka haddaad sharaxaad kale naga siiso adeega hoodo intaasaan sharxadiisu waa intaasaan saxayin kale gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland su'aasha la weydiiyay waxay adeega hoodo wuxuu inoo sheegay hoodo in lagu ogaado natiijada imtixaanka waa sax jawaab sax ah ayuu bixiyay waxaana uu ku guuleystay waa gudoomiye waa mudan yahay waa dharka suudka waa sida ayuu helay waxaan islaatay gudoomiyaha maanta uu gudoomiya waxaan islaatay la garan waayo suudka adiga hore isii qaaday fadaaye laakiin waxaan isleeyahay lagaaga hormaray hagaag gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa ku guuleystay abaalmarintaas warbixin kale ku saabsan hoodo muxuu yahay jaamac ayaan siinaya marka hoodo adeega hoodo waa adeeg u saamaxaya bahda waxbarashada gaar ahaan instituushanada waxbarashada inay ku gaarsiiyaan imtixaanka natiijadiisa waalidiinta iyo ardayda moobilka shirkadda Golis waxa uu dooranayaa iskuulka shorti courtkiisa iskuulka la siiyey Boosaaso Public Secondary School shorti courtkiisa waa BBSS 004 qaabkaas uu dooranaya ama East African University oo ah AEU 0058 kabacdi wuxuu ku darsanayaa roll numberkiisa wuxuuna u dirayaa 299 adeegaas insha Allah halkaas ku dhamaaday su'aasha saddexaad insha Allah waxay noo soo qaban doonaa gudoomiyaha gobolka noo soo qaban doona mar labaad hagaag su'aasha saddexaad maxay leedahay weeye marka su'aasha saddexaad waxay leedahay macmil sharaxaad kooban ka bixi adeega baaq macmil sharaxaad kooban ka bixi adeega baaq waa hagaag adeega baaq weeye baaq ee shirkadda Golis nambarka helay waxa weeye 78 93 eber 4 waa 78 93 eber 4 78 93 eber 4 78 93 eber 4 waa su'aal aad u fudud adeega baaq soo dhawow dadka ka soo wareega halkan soo istaag bismillaahi raxmaani raxiim adeega baaq waa ina maasaj u diri karto dhammaan macaamiisha shirkadaada intaanka haya hagaag inuu saxayin kale jaamac ayaan siinaya macmiilkaas waxaan weydiinay adeega baaq inuu ka bixiyo waa sax in company ama maaragtay NGO ama xafiis uu u diro macaamiishiisa SMS hal mar si guud adeegaas uu ka jawaabay waxa uu ku helay go'shaala طبعا معوس ويه هذا قرح بدن طبعا مدحدا يا سي غدونسين دونتا معوس تاسي warbixin kale ku saabsan adeega baaq jaamac marka la inoo siraaci annagu sii gudageli doono lambarada kale adeega baaq wuxuu u sahlayaa macaamiisha xafiisyada iyo hay'adaha iyo ganacsatada inay macaamiishoodii ama shaqaalahooda si guud ay hal mar SMS ugu diraan isagoo ku baxaya SMS-kaas magaca company-gaas magaca company-ga SMS-kaas ku baxaya si guud ba dadkaas oo dhan u gaaraya si fiican macaamiisha u shaqaa طبعا lambarka afraad su'aasha afraad iyo inoo soo qabanaya markan mudan ala abawaare siyaasa ala abawaare iyo inoo soo qabanaya markan nasiibkiisa uu siiyay ayaan arkayna su'aasha afraad waxay leedahay shay macmil waxaad sharaxdaa adeega afgarad sidee la isku diiwaan geliyaa macmil waxaad sharaxdaa adeega afgarad sidee la isku sii diiwaan geliyaa aan siiyo lambarka ku qoran waa 72 mudan ala abawaar ayaa soo qabtay nambarkaasi aan siiyo qofka nasiibkiisa noqdo 72 macmiilkaas waa maqan yahay waxaan rabnaa cali cabdi waa rabaad inuu soo qabto siyaasi si aan qofkaas u helno beriberkiisa loogu shubo qofkaas siyaasi ayaa mar labaad soo qabanaya
وانا سؤال شان هذا مثال في أفراد يا مركز اللي علنيا ومعمل شرح هذا أفقرد تدواتني سيدات قول سيدات إبراهيم سعيد صالح ويا تدواتني قول سيدات تدواتني سيدات وإبراهيم سعيد لما بركضال بفريا ومالينيا إبراهيم شرح هذا أفقرد سيدات رسمي ديوان جليا تدواتني سيدات قول سيدات أيوة ثاني كأساس ودو هذا أفقرد سيدات رسمي ديوان جليا نصيبكيisa Ibrahim ayaan eegaynaa iyo sidoo kale kale macaamiisha shirkadda lambar qurux badan waa wataa dhammaan marka hore waan salaamayaa aad ugu xumahay xaqiiqdii wax yar baan isticmaalay oo inta adeegyada soo bixin dalka ka maqnaa runtii adeeg muxuu ii sheegtay magaysa adeega waxa la yiraahdaa afgar mar baan isku day 188 baa laga galaa adeega afgar laakiin waan ka xumahay inaan faahfaahin badan ka bixin karin waana ugu daaranayaa إبراهيم سين الجواب صحيح كله. وعور كان نوريه ما دام ضلك وكم مقنع. وحلاقيه أبا ضلك قاب كود إنه سنجارين بعدين كانوا. لكن ضلك الصومالي قرام بتلا نسيبه وياطي. إن الموبايل كود كهلا ديكشنري يسكت ترجمة يا لغة هذا هي لغة إنجليزية. برلمان صومالي إنجليش أما إنجليش صومالي. وعقوق لستي شكر. مثلا على طوارئ بدوسيني تم دام أصلا كم بلبس وقتي إبراهيم شكر ده أبو رحمن فقال طبعا نسيب كيسا يقول سؤال شخصي نسيب كيسا يقول طبعا حاس كيسا يهدي الآن وقد جاي صار رجالي سؤال شكرا إن شاء الله وين وصل كمان دونا وكان كجناح في شركة الجوليس عمر عيسى تفضل طبعا نقول عمر عيسى عمر فاروق طبعا تبغى نويا قناه وسؤال شنات وحاسب حاكو وممكن بحنيسة هذاك إلى وذاك سيريسا معبيل كوي عكراء هذاك إلى وذاك ما عميل وحاسب حاكو وممكن بعيسى هذاك إلى وذاك سيريسا معبيل كوي عكراء هذاك إلى وذاك طبعا اللحظة تضربات اللحظة سدادية طبعا لحظة تضربات اللحظة طبعا معمل وحشرحات كون كبحيسا أداك إلى وذاك سيداس معمل كوي عكراء أداك إلى وذاك صور ديري وقتها بوعيري هاي فهذا صور ديري بوكسي بسم الله الرحمن الرحيم أداك إلى وذاك وحال وقرا بقول لحنا نشل أنت بدل وحى استعماشة مركز إلى عبد قابل أما أصحاب الشيء معمل كاسوسي وعم بوجه جوابي بقول لحدنا شنبه غفر الوعاء ومركز أرضين خوفك العكس سأله ولاكته وإيش هذه العيا كابحين وعوكوكو ليستي ساعات غالية ورنتي شركة وترى شيء معمل كاس ساعات هذا قربان أيها لي وهكذا أنسير ونمبر كل حاد يا ذاك الحاد نمبر كي نسق ونجاوب كان وحنوصل قبنا إياه فأنا حاجمرة روجان كحرير كتبين هاي شركة البوليس تفضل. سؤال شخصان شيش معمل وحاشر هذا أديك حكمال سداس السودي وانقشا معمل وحاشر هذا أديك حكمال سداس السودي وانقشا نمبر كوا تضبطني لح سجاشني يكو سجاشني سداد تضبطني لح حسنا يا رمضان يا بسماها سجاشني يكو سجاشني سداد تضبطني لحى حسن يا مركان هاي حسن طبعا سولو حسن هذاك حكمان يصير سيدي وانقشو لمر له بسم الله الرحمن الرحيم هذا اسكو دايين كسو aan xog badan ku hayn laakiin waxa taabanaysa hal saddex طبعا نسي جامعة وقعد دارنا يا إن الهوريها سؤالش ودنا عمري مرلبات من فرصة سنة يا قفك صدحات وحصوق بنا يا قدوميها الدول طبعا قدوميها الدول كيانسين يا سؤالش حسن وهرير مري دكتور يوسف يا قروق هذا تدوات من الله وفرشني لبعتني أفر صدني تدواتني سن وحنو مرينا يا لمر قاتنا نقرنا يا لبعتني أفر صدني تدواتني سن وقال العيوني حقها فديها نسيبك طبعا ورفعين يكون أدوريك يا مانتا لا نصير ساك
adeega maxaa sharaxaysa adeega xogmaal iyo sida isu diiwaangeliya keliya adeega xogmaal Khalid waa ninka farsamada noo fadhiya soo dhaw Khalid adeega runtii su'aalo fara badan halkaa waa laga jawaabay waan mashquulsanaa ilaa haddana mashquulkii waxaa haya kamarada cidii ii hagi lahayd baan hadda ka fikiraya marka xogmaal dadku dhan way soo eegayaan waxaan ma isaga nasiibsadaa طبعا ما يجي waxaan sheego ma laha waan iga dhacday yaa iga faa'iidaysanaya طبعا maya mar kale lagu celinayaa raada ka xumahay in Xasan iyo saaxiibka Khalid ka faa'iidaysan waayaan qof saddexaad Dr. Yusuf ayaa mar kale qabanaya adeegaasi waa qasab Dr. Yusuf ayaa mar kale qaaday adeega xogmaal iyo qofka lambarkiisu ku qoran yahay waaga konton iyo afar sagaal eber konton iyo afar sagaal eber konton iyo afar sagaal eber gabar ayaa soo istaagtay dabcan adeegaas iyada way ka faa'iidaysan doonta saaxiibay ku qaalaya saan u malaynayo oo su'aashaas xareer martay soo dhawow waa adeega su'aashiisa iska rabo xogmaal iyo sida isu diiwaangeliyo soo dhawow السلام عليكم دمان aad baa idin salaamaya haddaan sugayo su-aasha waxa weeye waa adeega laga helo wararka marka all three baa la hagaag weliba adeegay garan waaye saaxiibada waa shaqadoodiba saan u malaynayo sida su-aashiina sax tahay garajaa xogmaal waxa uu kuu sahlayaa inaad hesho akhbaaraadka caalamka iyo weliba barnaamijyo dadka bulshada faa'iido u leh waa sax adeegaas sida u sharaxday waxaan lagu galaa 333 saddex saddexaad baa la isku diiwaangeliyaa registration baa qoraysaa REG saddex saddexaad oo u diraysaa gabadhaas si fiican bay uga jawaabtay waxay ku guulaysatay barafum qaali ah oo runtii ay ku isbaaqayso hagaag numberkaasi meel weyn lagu qortay oo u malaynaya si Soomaali dambaysa ku dhaafin waqtiga nasiib kale ah duqa degmada Boosaaso ayaa guddoonsiinaya gabadhaasina dabcan barafunka aadka u qaaliya waa hagaag aan ka sii gudubno lambarka 7 ee macaamilka helaya waa hagaag marka waxaan siinaya saduqa Boosaaso inuu noo soo qabto adeega kaaftoon ayay markaan su'aasha soo gaartay macaamil sharax adeega kaaftoon iyo lambarka 7 adeega kaaftoon iyo lambarka 7 macaamilka helay aan weydiiyo waa 74 soo dheere fadlan soo dheere hagaag soo dhawow bismillahi rahmaani rahiim su'aasha ka jawaabo waxa weeye adoo gurigaaga jooga waxa maamulaysaa bangi hagaag inay sax tahay kare jaamac waxay kubaan macmiilkaasu si sax ah uga jawaabay su'aasha adeega kaaftoon waxa ku sahlayaa akoonkaaga Salaam Bank inaad ka maamulto saalkaaga adoo dalka dibadiisa jooga ama magaalada jooga ama gurigaaga dibadda jooga waxa uu ku guuleystay hard disk 500 GB hagaag ay doo maray baadiyada labaad aan iyada gastay doo martay lambarkayga halka ka soo baxay waa hagaag su'aasha sideedaad ee dabcan nambarka marka waxaan ka codsanayaa maamulaha marketinga shirkadda Golis mudan Cabdiraxmaan Dayax inuu noo soo qorto lambarka sideedaad adeega kumee ayaa la marayaa haatan iyo sidee la isu diiwaangeliyaa macmil sharax adeega kumee sidee la isu diiwaangeliyaa macmil sharax adeega kumee sidee la isu diiwaangeliyaa 74 eber 74 fadlan soo dheere goobta ayaan haya fadlan soo dheereeya idinka horaalea 74 eber kumee iyo sida la isu diiwaangeliya ayaa haatan la sii rabaa kumee iyo sida la isu diiwaangeliya soo dhawo adeegga kumee waa adeeg loo isticmaalo si aad u ogaatay teleefoonkaaga marka uu dansan yahay inaad u ogaato message ku soo dhaca qofka kusoo waxa waxaana lagu diiwaangeliyaa 155 baan geliyaa hagaag jaamac inay sax tahay inay khalad tahay macmiilkaas waxaan weydiinay adeega kumee waxa uu yahay iyo sida la isu diiwaangeliyo waxa uu ku sheegay adeega kumee inuu yahay inaad ku ogaato mobilkaaga marka uu dansan yahay qofkii ku soo wacay waa sax su'aashaas si sax uga jawaabay dhinaca kale waxa la isku diiwaan gashaa 127 waxa uu ku guuleystay macmiilkaasu flash 16 GB waa hagaag flash ayuu helay muran Dayax ayaana guddoonsiinaya oo u soo qabtay bartaan siirkan
اوكي سؤال لمبركا سغالات marka waxaan ka codsanay noo soo qorto lambarka sagaalaad Sheekh Fuad oo kadib maxaa shirkadda dowladda Sheekh Fuad ayaa lambarka noo soo qabanaya lambarka sagaalaad waa rakam ugu dambeeya sharaxa adeega web interface sahal web interface ayaan umaleynaa inuu adeegaas yahay dabcan waan arki doonaa sharaxaad adeega waxaa laga rabaa sahal web interface furaha waa 6 eber 5 36 furuu waa 6 eber 5 36 furuu waa 6 eber 5 36 adeega sahal web interface ayaa laga rabaa وهذا قف كلا شيخ فؤاد مركز قبته شيخ فؤاد هو لمر كلا سوق قبته وكحل كان عليه هدية أطفال لا حتى فكان عليه لمر كان كليه تدواتن يصدق لحظة إلى وصدق يسجد هدية جو كفر صادرة تدواتن يصدق لحظة إلى وصدق يسجد كيس مية سونو كيس تدواتن يصدق وأنا سؤال شيء يقول بيسي هدية يقول بيسي سعيد بيسي نصيب كاغا فأنا هذا أنا أمر كلام واحد أنا قيمة على وقت ولا ما تناول تتقدها ساعة كفر بين الرجال كيس سودو فأجان كيس سودو كلا فقعد وذاكرين وسجرين ما دام وصلنا ضدهم بيدعنا ضد بكرة كمانا قف كلا يا أمر كلا شقواد وسيننا إنه نمبر كلا وصل رفضه تدواتن يا أفر إيفر تدو صدنيشن تدواتن يا أفر إيفر تدو صدنيشن تدواتن يا أفر إيفر تدو صدنيشن سودو أديك وسهل ويب انترفيس شركة إسقاطية تدور سنكم كم إذا أديك هذا بسم الله الرحمن الرحيم وبارك وحسلام يا مدح سرفت ما شغلتني وحسرفوني أنا بقول إني عاصمة بوتلان هو من برنامج سكيس كائن أنا تأكد الجرا نصيب كمان شيء لغيري هذاك السهل هذاك السهل وهذاك وفضيي وما تقفل با وفضاني إنه استعماله فكو هذوكم كان عبيه هذوك بيع الراعي وحول بقى السمانة يا وحول فضي هذاك السهل تدخل على نعمته هذا سهل استعماله سواء هو شيء والله سنتي إنه سهل هنا قلت الجامعة معميل كي عاصمة بوتلان وسمياش السعودي سؤال شاف لوجيي سبحات الليل قالوا تبحي وكم أفني هاي وأنا كل استي بوع شعر وصور اسمها وكل وانا يا عاصمة بوتلان أديك سهل وعلى وقت إن الاستعمال وموبايل كنا كنا استعماله سوق الأكون عن الاستعمال وعلى سميه ويب انترفيس الوقوف في الوضعية inaad akoonkaaga ama numberkaaga aad ka isticmaasho computerkaaga oo xafiiskaaga jooga aad hal mar macaamiisha u diri karto lacag isla markaana hal mar aad ogaan karto wixii ku soo galay lacag iyo wixii ka soo baxay aad daabacan karto oo xafiiskaaga jooga aad ka maarmi karto inaad ogaato dhaqdhaqaaqaaga ama shirkadda la xiriirto adeegaasna intii saas u taraya dhammaan macaamiisha ka soo qayb gashay xafladan maamulka macallimiinta kasoo qaybgalayaasha waxaan leenahay waxaad ku mahadsantihiin abaalmarintii iyo nasiib wanaagii aad meesha muujiseen adeegyada shirkadana dhammaan macaamiishu way wada yaqaanaan taasaa nasiib iyada ah adeeg walba shirkaddu waxay yaqaaneen macaamiishu sida loo isticmaalo in ka badan inta shaqaalaha shirkaddu ay yaqaaneen taana way ka mahadcelinaa marlabaad wallahu billahi tawfiiq أبو ما سنة جامع أو تعسير يا صاحب هذا نسيب كساعد ويا يعني كان كذا لمبر كير ويا وهذا ضوء رجستيان SBC TV شلون كده عاد SBC عندك رجستيان ملك السعودية ذات كجوكتا وعندنا 6 دعوة إنسان ولد رجستيان حفلة كذا تطلق كريس كبيش برجستيان رمضان يقوى هاي دور بعين الصومالية ده SBC وهذا 6 سعودية كجوكتا مجرد بوساسو قبل كلا كلمة مسؤولين تيان بتقول دونا وقت قاد نوبك وبن أوجيس عن قبل ويا شيخنا قدوميها قدقة قرمة حدث كسو عربية قوتك اليمن وطبعا الله يسكت علماءنا ووحبا قبل سنة كان يسوى كل سنة تذكر الرئيبة وشيخ أحمد يوسف دار شيخ أحمد سوريو الله أنا دعينا علماءنا إنه إلهينو نوري عمر بابا الرئيبة وحبا أيها هيا شيخ أحمد سوريو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا dadweynaha quruxda badan iyo maamulka waxaan ku salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha labada dhinac oo aadka u wanaagsan
صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كلمة ديد إن شاء الله وقت واعريدي وحن دردار ميا أولا وحدوني آخر وإن كل بان إنه إلهي سبحانه وتعالى عبسيديسا وحول بينه فوضينا يا أقونتنا يجريتان كنا يدلال كنا يعمر كنا مركب وحن ليا نفتي يا ولا له وناكسن إلهي نكبرنا وأن نسود وأنه وحكستوينه قبنا إنه إن نقولنا ضد إلهي حرر له أو إلهي جعل أو إلهي كبقايا وعن كل حجنا يا كلمة ديدا وأنا أبغى أفرح سنة هاي قوبت عن قروح بدن ضد كان أبغى أفرح سنة مع قيب كهاي وحن إلهي بان مكتوبه يوم هذا علنا يا نوف زي هوشة آت وقيمة بدن ثانيا وحن يوم هذا علنا يا دلدا عن هرسنة إنه وينوف ذي الشغلة ودلدا مامولكا إن هرف دي قبل كي دقمدي وأي نوع سورة جلسي إن واحد قبصنا حقد إدارة أدب وما حسنتهاي وحن مهدو علنا يا بعد الله وأنا أقول عنا إلهي نبركيه وخير بدن سيو الباب كي سببي وطن كهنتي ليال بدن باجيكن دقالة بدن بايال لكن شركة دي سببتي هنتي لو أنا كنت بحسوا 9 سنة وأي نفتر أهورتو حقدي وحن لي هاي إذن كنا هاي رب خيلنا آمين الله بركيه خير بدن الله السيو أدي وحن رجينا إن قبضته صوماليا ما أنتوا قبضته هير بنتلان لكن وحن رجينا سنة صوت أو جولس إن قبضته هير بنتلان منها شغلي بوريس قبضتي وحن إذن حصايا أعماش خيرية يبلشبه ينوع كستودعة ونبر كوات شلو واحد داوني سنترتن كقرآن كهير بنتلان إلى بوريسي صلوا هاي وعلى ركيسن أباري روم كهذا نظام مقعاري يمن الباب هو حفري وطبعا كي بس أقوهري وان حصايا جلس بهاي وعلى ركيسن مركا الباب خير ويه إلهي سبحانه وتعالى أيوه كلام الله النوبديو يجانا خير الله السيو أنت كان وحن لنا فليتنافس المتنافسين هكذا وحن مهارت علينا يا مر لبعض إذا عاد قيمها بدن وما أنت تلفيش كنا كصدرت SBC ورنت أدو قيمة بدن وحن مهارت علينا يا هوريال برينتر وضد أدو خير بدنا أنا مهارت إنه الدعاء إن شاء الله إذا كنا آمين توي بخير لنا وحن هوريال برينتر وحن مهارت علينا يا مؤسسة خيرية وآت كأبدها وين وأنا سليه ما أنت واحد بدن بيتلك قبل